koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan reer kalamaanow su'aal waa su'aal da'weyne dalkayaa iskale alla ilaah su'aashan waa maqli jira welina jawaabtiyaan raadiyow haaya kii dhagax ku daadshaale jidadkana xirxirtaale wareysa sidaa u qaada maahane waatan midkii digay aqoonto dadku ka aflaxaano dhaawaca tacliintaale intaan soo noolay weligay tacliin dhaawaca ma arag warnimaya ma taqaaniine dalkan dawladdaa leh war dalkan waxaa iska leh dadka canshuurta bixiye war dalkan dadkii iska lahaay waa joogaana yaa u sheegaya inay leeyihiin horaan waxaa loo yidhi rootinimo cunoogiska seening hortiisii ayaalaa war waxa aad keenteenna su'aal maaha waxa aad uga jawaabteenna jawaaba maahane dalkan da'yartaa leh adinkuna duqowshaatiin wakhtigiinna waa gabaabsii hordaha naga taga war maylaray 20 jir antitaa ka boodo tala ka boode waa leeray dogooshinka dalkaad andiidi da'yartaada sidii walaagi da'yar halayta dogooshinka suu bii jireena andi daamiyo hayta dalkun warnimayo dadkii hore in dalka uu ka degilaayahay oo markii ay shaqadoodii dhammaysteen idaacadaha facebookada soo taagan yihiin madaxweyne farmaajo sheegay war waa waalan tahay madaxweynuhu wuxuu sheegay waa siyaasiyiintii hore markay shaqooyinkoodii dhammaysteen aan nasasho ogolayn oo shaqadoona 30 haddii looga yeelana kubanaani bannaanka taagantaha baagamuutahay oo dawladda lugaha ku dhegaysa war saasmaan madaxweynaha wuxuu kale uu yidhi waxaan ku guulaysanay in baarlamaanka iyo xukuumadda ay wada shaqeeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahana ay wada shaqeeyaan annagoo ah hay'ado kale madax bannaan oo kaale waran ii gaashaankii la sheegayay maas ka wadayne war wuxuu kaloo madaxweynuhu yidhi waxaa caqabad nagu ah dawladaha dariska oo hadday ku jeclaan waayaan maamul goboleedyada kuu soo dhex maraya oo dawladaha dariskaasoo Kenya ka mid maaha annaguba ma jeclina siday noo jeclaanaysaa warnimiyow lankoo hata ka hormeeray walaagi shaqa aho guruha ka batan isleedahay gobade loodin ani hadaa jeewaari hooba hareeyon ani maale badarkana ani kariye waari loodiyaha harey badarkiya dabsaaradi wasinki dherigi ha karkari ya maylare iyaalku hunduru ani loodun ning maal dherigiya irataha kahiridi wasinki awsu koysaadi maal usus araayi ya dherigi oo kuleel ee iratahanka deeda hireed shileedeya dindaaran shibleyhaadeen war madaxweynuhu waxa kale too yiri caqabadaha dawladda haysta dawladaha khaliijka ka mid ah aryaada wuxuu yiri waxay tiri in iska dhaaftiin war badan wax tari maaya wax qabada la rabaahe inaan lahayn howshiyo leesan daadayo waahuba inaan lahayn howshiyo leesan daadayo waahuba war Puntland maanta waxaa la doortay gudoomiye cusub oo baarlamaan ninkii dhooba gareen ahaana waa tuu lahaa cid aan aniga ahayn saxaafaddu kuma sheegi karto gudoomiye baarlamaan hadda gudoomiye kalena maanta waa doorteene xagee la marsiinayaa war annaga gudoomiyaha la doortaan soo dhawaynaynaa sababtoo aanin abwaana weeye hadhawaaw gudoomiyow hadhawaaw war qolalaan duqiyay direen qolada kaleedna duqooda ay direen duqooshinkii intee loo wadaa duqooshankii inta loo wadaa war gudoomiyahani waa gudoomiye baariyo madaxda ka sarreysa ka dambeeya baa la yidhi ninkii walaalo ku yira walaal uroona la yira ninkii walaalo ku yira walaal uroona la yira laba isjecel wax iskugu dar ay ka isdili dooneen war gudoomiyada bursul jigjigu tagay labadii noolna waa ku kalsoon tahay war madii bursul war kama hayside wuxuu yiri doorashada way dhacaysaa madaxweynaha 4 sano oo kaliya ayuu leeyahay aryaada maanta war ma haysiin dhiwaataana soo booqatay wixii ku dhiwaatay waa la dhiwaataya dhiwaata ma fiicnaa naga dhaafa aryaada dhibaata lama dhaafi kareena dhageysta agaasimiyahoon kaybal oo hargeysa ka yimid waana dhex rodga yaa ilig naxaanoo keenay war Muuse Andaraam uu ka soo qaxay war kaligiis ma waxa soo qaxay waxa la socda Cabdishakuur Dayib iyo Axmed Cabdi Saciid aryaadaha warka naga dhex galina waxay kamid ahaayeen wariyayaasha jidka ku soo jiray oo la sheegay wariyaashu soo barbuudeeyeen warnimiyow dhimantan dhibaato man yara dul yari ka dhawaayay gabeelka war
xamarna fadhiuma yaal haddii kaasi ku soo dhoweeyey war dad kula jooga lama xantee wixiinu xoog miya dulyar dulmi kama dhammaado duduna ciid kama dhammaate war faysal cali waraa wuxuu yidhi somalilan hal qof ma joogo muuse handaraaba handaraabi war ma haysiina guddoomiye xisbiga wadani maanta wuxuu yidhi haddii aanu madaxweynuhu xal keenaynin isagaa mucaaridee muuse laan ha samaysto war adeerow maxaad walaweynta u dhex keentay laanteenna